wasiirka cusub iyo wasiirka xigeenka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland ayaa xilkii kala wareegay wasiirka xigeenkii iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi. munaasabad kooban oo loo qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga muxaafidka ah ee wadani, mas'uuliyiin hore, abwaano, bahda suxufiyiinta, aqoon-yahan, mudan iyo marti kale oo lagu soo casuumay. munaasabadani ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Axmed Cismaan Batuun oo ku hadlayay afka shaqaalaha ee wasaaradda, qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha, mas'uuliyiin hore qaranka ugu soo shaqeeyay, suxufiyiin iyo mudan kale oo lagu soo casuumay. waxa ayna soo dhaweeyeen wasiirka iyo sidoo kale wasiirka xigeenka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda, halka ay sii sagootiyeen wasiirkii iyo sidoo kale wasiirka xigeenkii hore. wasiir kasta iyo wasiirka xigeen kasta iyo mas'uul kasta marka la soo magacaabo waxa la yiraahdaa nimo waalwaalan baa lagu geeyo qalqaaliya oo caynkana oo kii kala والله وسير وأنا أقول أرتي دتكي وجوب سنة بعض تسمد وحاكوا سووا الهدية رج يدمر وشقالة وجوب سنة وأنا بنلعب كتونتا waxa soo dhaweynaya wasiirka cusub iyo wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda la bilaabi doona xukuumadda cusub ee noo dhalatay. wana la ducaynaya insha Allah bidmillahi karim guud ahaanba wasiirada iyo xukuumadda cusub ee bilatay ama wadanka xukunkiisa qabatay in Ilaahay xilka u asturo guud ahaanba. markii xigta waxaan sii sabooteynaa wasiirkeeni iyo wasiirka xigeenkeeni oo in muddo ah runtii aynu uga shaqeynay si dhimirsan dhagan nugul oo balashiisi ahayn. xafladan aad u badan waxa aynu qabanay xuska labada wasiir iyo wasiirka xigeen isbedelaya. waxaan eeboga barayaa wasiirkii hore oo iyo wasiirka xigeenkiisii oo shaqo badan qabtay oo quruxda wasaaradda maanta taala aad arkaysaan. waan sii sagooteynaa. waxaan soo dhaweynaynaa Axmed Yaasiin Cali Ayaanle iyo wasiirka xigeenkiisa cusub. munaasabadan isugu nimid waxa weeyaan wasiirkeena hore in jecel lahay oo in sagooteeyno waa Cali iyo wasiirkeena cusub ee Axmed Yaasiin oo leenahay waan ku faraxmay markii aad noo timi aadna waan noogu sheegay qiimaha aad leedahay. waxaan leenahay soo dhawow wasiirka hore waxaan leenahay بهستي دعاء أن كوجد عيني الله أكبر. أحمد يعيش على الوني هلودينا ونن شيخة من الشيخ وعبد الصلاة مركا وبعنا وحنا لاحظ سود ولا وسير سود وكسود وساردا كسود رب لما قالوا الرياض وحقبتي الله حلقة يملك في عم إن شاء الله إلى الجالسيسة قاعد رجينا دي لها إدمو لما تيجي ويني دعينا شكالها iyo wasiirada dhammaanba waliidu aad baan idinku ducaynaa oo leenahay Allah idinku asturo xeelkaada haysiin. marka hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Axmed Yaasiin Shaqaale Ayaanle oo sidaad la socotaan meel walba ciddii maqashayba ay hambalyeysay xilka iyo mas'uuliyaddaasi loo dhiibay. waxa loo hambalyeynaa waxay tahay xilka qofku habboon oo mas'uuliyaddiisa loo yahay oo ka soo bixi kara inuu yahay baa loo hambalyeynaa. waxaan runtii la yaabay wasaaradda soo marmaray runtii Cali Xasan Maxamed aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa isbeddelka weyn iyo talaabada weyn ee wasaaradda warfaafinta uu ka qaaday. aad iyo aad buu mahadsan yahay. waxaan ku faraxsanahay maanta inaad kala soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee ay la kala wareegayaan wasiiradan meesha laga sharxay ee muxuu ahaa mid walba uu martabadiisii halka ka muujiyay. waxaynu soo dhaweynaynaa oo inuu ducaynaynaa wasiirka cusub Axmed Yaasiin Shaqaale Ayaanle. waxaana sii sagootiyeynaa wasiirkii hore iyo wasiirka xigeenkiisii Cali Maxamed Mareexaan. Jamhuuriyadda Somaliland waxay u baahan tahay wasaaradda warfaafinta waxaanay uga baahi badan tahay waqti kasta oo hore u soo maray intii ay xornimadeeda qaadatay. maanta waxa dib loo soo nooleeyay oo nool qabyaaladii. xil weyn ayaa ka saaran wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda dhaqanka, wariyeyaasha iyo madaxdaba inay arrinta iyada ay kula dagaalamaan oo si weyn u guda galaan si dhalinyaradeenu cudurkii laga bogsanayay ee dib loogu soo nooleeyay ay meeshii uga baxo. كل سنة كي تجي
wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waxay ku xusantahay wasaaradaha waxqabadkoodu ugu fiicnaa ee achieve gareeyay 90% in ka badan qorshihii sanadka. warbixinta madaxweynaha waan la wadaagnay kolley wasaaradda cusub wasiirka cusub waxaan ku dardaaraynaa isagana inuu ka sii amba qaadi doono halkii wasiir cali uu soo gaarsiiyey shaqada si aanu hoos uga soo dhicin kaalinta ama gareerka ay kaga jirto wasaaradaha qaranka. waxaa tihiin wasaaradaha ugu miisaan weyn dalka, waxaa tihiin wasaaradda ummaddu daawato dhagaha iyo indhahaba idinkaa ummadda macallin ugu ah. wixii la sheegayo wixii laga hadlayaba TV-ga laga daawada la hor fadhiyo iyo baraha bulshadu ay wax ka eegto, wixii la maqlayo idaacadaha laga dhageystaa intaba idinkaa soo gudbiya. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine. TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu xafiisay hab qaran ku lahaa wasaaradda dhexdeeda mana lahayn istuudiyo casri ah. halkan ku aragteen wasaaraddu waxay hirgelisay intii wasiir Cali hogaaminayay istuudiyo cusub oo aan leenahay waa pilot project, waa istuudiyo tijaabo ah oo nagu talagalay in la qurxin karo istuudiyaasha TV-ga qaranka u leeyahay. iyadoo imika wada hadal noo socdo qolyo Talyaani ah oo wasiirka wasiirkii anigu baan hawsha ku jirno ayaa isbedelka yimi. waxaan rajaynaynaa waa hawl u taala dhameystirkeeda wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta saaxiibkay Axmed Yaasiin Cali ayaan leh nimco maan iloobin shaqooyinka waaweyn ee wasaaradda meelaha loo baahan wax laga qabto waxaa ka mid ah iyo telefishin qaranka labadaba. kaydkaasi muddo badan baan isku daynay inaan ka qabano. anigu markaan ahaa gudoomiyihii ururka Soviet Somaliland Soldier project baan ka qaadnay hay'ad Care International ila oo markii dambana ay nagu ladhay radio ka jira Muqdisho aan labadaba anigu fulino anigii groupkaygii. dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda deegaanka ee Somaliland Cabdilaahi Galjire. saaxiibkay Cali iyo saaxiibkay Sheekh Axmed oo aanu muddo 20 sanadood ah imika wada ahayn line upka aanu ahayn xildhibaanadii la soo doortay 2005 oo aanu laba saaxiib oo dhownahay labadaba dabaylaha isbedbedelayeen baa korba meel deena kala geegeeya. inta badan aniga Cali baa saaxiib ahaan jirnay oo kulmiyana ahayn Sheekh Axmed Yaasiin xisbigii udub oo markaa dhibiirada ka duulayaan buu ahaa. haddana mar dambe la isweydaartay aniga haddana xagga u baxay haddana Cali iyo wasiirkaas labada wasiir baa isku haray haddana aniga wasiirka cusub ay ka wada soconay dee baasha waa iska sidaa horta. wasaaraddan inay wanaagsantahay waxaan ku garanayaa Cali Mareexaan bay bartay sida loo jaaso. waxaan aad iyo aad Calina ugu hambalyeelayaa sida loogu wada markhaati furay. anigoo wasaaradda in badan iigu dambeysay markaan nimina aan runtii yaabay quruxdeeda iyo siday tahay. hambalyadaas ayaan aniguna u gudbinayaa idin la qabaa. saaxiibkay wasiirka cusubna Sheekh Axmed Yaasiinna waa qaadiriyo oo labadaba uu isku wadaya tiini awadeen iyo tii kalaba marka waa wax idin soo kordhay way. dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Somaliland Siciid Xasan Habane iyo sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxayna ka warameen muddadii ay xilka hayeen waxyaabihii qabsoomay. wasaaraddani waxay gaar la tahay waa wasaaradda maamusha wax kasta oo media halka laga maamulo ee laga hago oo imika aad u farabatay ama Facebook ha noqdo ama Twitter ha noqdo ama ku institution uu leeyahay ha noqdo ama ku koox leedahay ha noqdo ama qof gurigiisa ka soo dhaxadlayaba ha noqdee intaaba wasaaradda looga baahan yahay inay hagto ee ay maamushaa. waa tan mudane wasiir waxaan kuugu bishaaraynayaa xeerkii waxaasoo dhan kuu fududeynaya inaad xakamayso isku dubarido waa xeerkaasi maxaan ku raday imiga laga shaqeeyay ee dhawaan wasiirku golaha baarlamaanka uu ka hor sharaxay way aad iyo aad ayaan islaahay kaasina waxa way wax fara badan ku tari doona. wasaaradani waxa kale oo si gaara wasaaradaha uga duwan tahay
bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan halkan way joogaan waxaa laga yaabaa wasaaradda caafimaadka in professionalskii caafimaadka dhakhaatiirun ay joogaan ta waxbarashada intii waxbarashada la xidhiidha ay joogaan ta deegaanka ama beeraha mid walba nooca halkan culimadii baa joogta oo wacdiga ka wada dhakhtaradii baa jooga oo dadka maxaan ku dhahay wax uga sheega macallimiintii iyo qaybtii waxbarashada jooga fanaaniintii iyo musicianskii baa jooga abwaanaa jooga wariyayaal baa jooga bulshada qaybaheedii kala duwanaa nooc kasta yihiin wasiir halkan ay joogaan waxaan is odhan karaa waa jaamicad liannaha jamacat min kulli asnaafil shacb wasiir waxaan kugu wareejinaynaa shaqaalaha 830 oo dadka ugu wanaagsanaa ay joogaan annaguna aanu dhammaantood runtii wada saaxiibo iyo asxaab noqonnay mustaqbalkana insha allah wixii isu noole ay saaxiibo iyo dad isku dhawaan noqon doono waa hanti ummadda intaa leg inaa wada shaqayseen oo isbarateen oo runtii idinkoo isku faraxsan shaqada idinka dhammaato aa kala tagteen waxyaabo badan bay ku timi oo imika waxba aad u faahfaahin maayo laakiin midun baan sheegayaa oo qofna qof uma dhegaysan kooxna ma samaysan waan dhex qaaday un marka saasaa runtii ay dad wanaagsan u yihiin waana isbaran doontaana lagu bahalagelin maayo shaqaaluhu iyagaa waxaasoo dhan qabtay wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guudna isku mid baanu ahayn isku qof baanu ahayn isku talaanu ahayn waxaasoo dhamina may suuro galeen haddaan intaasoo dhami shaqaynaynin oo aanay shaqadaa qabanaynin marka waxaan markaa iminka idinku sheegayaa war xaggu waxaanoo lacaga ka keenay haddaa istirahdaan iyo ma hoostaa wax looga dhiibayay ma naftaanu duldhignay nafta sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland iyagoo shaqaalooyinahana ka codsaday inay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan waxa ayna ballan qaadeen inta ay xilka hayaan inay si wanaagsan u hogaamin doonaan wasaaradda waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ilaahay maadisa ka sokow madaxda halkan aanu bedelayno ee ugu horeeyo wasiirka Cali oo runtii waxqabad aad u qaaliya halkan ka qabtay guul bay u tahay runtii Cali inuu ku gunaanaday hawshan ragga dambe imanaya annaga iyo wasiirka cusubna waxay noo tahay runtii dhiirigelin in wasiirkii naga horeeyay hawshaa qabtay annagana looga baahayay runtii wasiirka cusub inuu halkaa inaga sii hogaamiyo inaguna aynu baalashiisa noqonno la shaqayno runtii annaga maanta wax badan oo halkan aanu kana dhahno ma jiraan kolley kelmaduun baana la siiyey inaanu maarata dadka aan halkan kelmad kana dhahno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin qaabilaadda weyn eedii qaabisheen iyo salliga nebigeed ugu qaabisheen ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro waxaan walaalayaal doonayaa inaan exactly intii karaankayga ah oo daacadnimo ku jirto aan magaceeda ka turjunno wasaaradda haddii aan la yidhaahdo warfaafintii qaranka ay noqoto meel baahisa war lagu kalsoon yahay la daawan karo la dhagaysan karo la aamini karo la xiisayn karo inay faafiso inay noqoto wasaaradda qaranka jihaynaysa haddii lagu soo duulo difaacaysa hadduu horumar u dhaqaaqo faafinaysa hadduu cadow kale ka hortagaysa kaalintay warfaafintu lahayd mid qaadata iyaan ilaahay ka rajaynaya waxaana ii qorshaysan maanka ku haya number 1 strategic policy wasaaradda inaan dejiyo qodobka labaad wasaaradda laba ilood bay ka soo burqanayaan waxa ay horumar sameynaysaa mid waa materialkii haddeerta laga warramayay kamaradaha inaga duubaya transmitterada warka lalinaya qalabka warbaahineed ee ay ku shaqaynaysaa waa il ay ka soo baxayso marka materialka awoodaan saarayna isha labaad ay warbixin wax soo saar ku sameynaysaana waa dadka iga soo horjeeda waa human resource waxaan awoodda saari doonaa intii karaankayga ah inaanan waxba kala hakran inaan dhiso shaqaalaha human capitalka wasaaraddu leedahay inaan dhiso inay noqdaan dad professionalisa really professionalisa farsamo yaqaano xirfadlayaal saxaafadeed